kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba naga daawaneysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyay haddaba maxaa cusub maxaa ka soo kordhay khilaafkii u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamulada Puntland iyo Somaliland ee la xiriira arrimaha hawada Soomaaliya ama maamulida hawada Soomaaliya maxaa ka jira in wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka ay soo saareen digniino la xiriira amniga hawada Soomaaliya iyo sidoo kale in la jabsaday mareegtii koobaad iyo tii labaad ee dowladda federaalku ay samaysay ee fiisaha Soomaaliya laga qaadanay ama laga dalbanayay xogihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay arinta la xiriira fiisaha iyo sidoo kale isqa qabsiga maamulida hawada Soomaaliya ee maamulada Puntland iyo Somaliland oo isku dhinaca iyo dowladda federaalka ayaa soo qaadan doona dhinaca kale shir xasaasi ah ayaa hadda ka socda waqti xaadirkan oo muuqaalka aan duubayo magaalada Muqdisho kaas oo u socda gudiyada ay qusayso arrimaha hawada Soomaaliya sida gudiga duulista hawada gudiga arrimaha dibadda gudiga amniga iyo sidoo kale gudiyo kale oo ka socdo shirkadaha maamula garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ama guud ahaan hawada Soomaaliya iyadana waa soo qaadan doona dhinaca kale Puntland ayaa ku dhawaaqday in lagu celiyo hawada Soomaaliya shirkadda caalamiga ee Kow ee waagii hore maamuleysay hawada Soomaaliya taasoo ay sheegeen waliba in hawada Soomaaliya dhaqaalaha ka soo baxo sidii horey loogu qaybsan jiray loo qaybsado taasoo ahay 3 meelood oo loo qaybsan jiray dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulada Puntland iyo Somaliland waxay sheegeen labada qaybood oo kaliya saddexdaas qaybood oo kaliya loo qaybsado 3 meelood in loo qaybsado oo dowladda federaalkuna qaybteeda qaadato Puntlandna qaybteeda la siiyo Somalilandna qaybteeda la siiyo hadaba arintaasi suurtagal ma tahay xageese ayay Puntland ku hilmaantay maamul goboleedyada kale ee dalka hawada Soomaaliya ma Puntland Somaliland iyo Xamar ayaa mas'uulka iyadana hadalkaasi oo wasiirka warfaafinta uu soo saaray maanta ayaan soo qaadan doonaa hadduu alaydmo soo dhawaada idinkuna aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga waayahay 48 saac ugu dambeeyay waxa aad loo hadalhayay arinta la xiriira fiisaga maamulada Puntland iyo Somalilandna propaganda badan ayay suuqa soo galiyeen oo ay leeyihiin hawadii Soomaaliya jamhuuriyadda Somaliland baa adkaatay jamhuuriyadda Somaliland baa ka adkaatay dowladda federaalka عندنا دولك لوجو دفتي هودا جمهورية بقى ماموليسا في ساقي بقى الله جبصدي مريكتدي كوبادية تيل لبعض بوالله جبصدي معلومات كيو دنبا لحظي مريكان بقى وحصو صاري دقنينا الصوبحي انجريس با صوبحي هبل با صوبحي كم با صوبحي أريمهاس شلينا وان كهدلي ومقال كلايان وقهدلي وولي باني دي لو داقي عطيمو ضد سفر ايو هرقيسة كو سعودي وقرومدا ingiriiska lagu xanibay oo waliba la celiyo tigidiyadii ay ka khasaareen taa waan idin la wadaagay arinta la xiriira maamulida hawada Soomaaliya dowladda federaalka ayaa maamulaysa waxba kama jiro in shirkadaha Fly Dubai iyo sidoo kale Ethiopian Airways ay diideen dhaqangelinta dadka ay soo qaadayaan inay qaataan visa ama la weydiiyo visa waxba kama jiraan weeye visa ayay wali shirkaduhu qaadayaan oo dadka qaadayaan Mareykanka iyo Ingiriisku waran ay soo saareen baa jira oo la xiriira in la jabsaday mareegtadii visa-ga ee internet in la jabsaday oo macluumaad la baxay mar bay soo baxday balse warkaasi waa daboobi waayay dowladda federaalku hadda waxay iskugu yeedhay shir degdeg ah ayay iskugu yeedhay oo ay iskugu imaadeen madaxda ay qusayso ama dhinacyada ay qusayso maamulida hawada Soomaaliya oo ay kamid yihiin wasaaradda duulista hawada iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya gudiyada amniga ayaa iyadana qayb ka ah shir marka xasaasi ah oo waliba saacado ka hor bilowday ayaa ilaa hadda ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa aad loo gorfaynayaa sidii loo adkeyn lahaa maamulida hawada Soomaaliya isla markaana meesha looga saari lahaa sheegashooyinka maamuladan iyo sidoo kale carqaladaynta iyo propagandadan ay hawada Soomaaliya soo galiyeen maamulada Puntland iyo Somaliland Puntland dabcan propagandada Somaliland bay faafiyaan iyagu Somaliland waxba la imaataa waxay tiraahdaa intana wataa hawada halkaas aan wasaaka yeelo rekoorday meel dhigata iyo gacmo iyo shaashad weyn bay darbiga ku xiratay
Puntland intaas bay u faafisaa oo propagandada ay u faafisaa propagandaduna Puntland aad iyo aad bay maamulada kale ee dalka uga horeeyaan dadka waxa weeye maamulka Puntland si kastoo ay noqotaba shir degdeg ah hadda socda waxaana looga arinsanayaa sidii meesha looga saar lahaa sheegashooyinka maamulkaasi sidii loo adkeyn lahaa hawada Soomaaliya loo ilaalin lahaa amnigeeda sidii waxa weeye dhaatadan waa la jabsaday la leeyahay naftirkeeda loo adkeyn lahaa meesha looga saari lahaa propagandada iyo sidoo kale to aamin baxa dadka soo safraya ee markaasi Soomaaliya u soo safraya oo run ahaantii diblomaasiyiinta xataa ay ku jiraan iyo dad waxa weeye khubaro ay ku jiraan sidii waxa weeye meesha looga saari lahaa cabsi la xiriidha in la jabsado amaba waxa weeye la fashiliyo qorshahan cusub ama systemka cusub ee dawladda federaalku ay soo rogtay ma aha oo kaliya visa inta naftigiisa oo aad iyo aad qalab u fiican ama hanaan u fiican oo adkeynaya nidaamkan visa-ga qayb ka noqonaya ayaa naftirkiisa la rabaa in marka dib u eegis lagu sameeyo waxaan la leeyahay Mareykan ba wax soo saaray Ingiriis ba soo saaray Ingiriiska iyo Mareykanku digniinaha ay soo saareen way iska cadeen Ingiriisku waxay dhaheen muwaadiniintayda safraya Soomaaliya u safraya har raacaan habraacyada iyo sidoo kale to fariimaha yaala garoomada Ingiriiska ay ka baxayaan iyo garoomada caalamiga oo diyaaradaha ay raacayaan ha iska fiiriyaan oo ha qaataan visa oo nidaamka ha raacaan baa lagu yiri Ingiriisaas weey Mareykankuna shaqaalihiisa iyo wixiisu u digayay oo uu lahaa waxa weeye sida hayalan shaqadana ha lagu soo noqdo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dib u fasaxday shaqadii magaalada Muqdisho safaaradu ay ka waday oo dhowr bilood ka horba la fasaxay shaqaalaha arrimo cabsi markaasi gashay si kastoo noqotaba hawada Soomaaliya waa safe wixii propaganda waa baab kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud weeye amar wuxuu ku bixiyay in wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo laanaha amniga iyo shirkadaha maamula ee qadaraasyada lagu siiyay arrimaha la xiriira visa-ga iyo sidoo kale taabagelinta qorshayaasha cusub ilaa dawladdu meel walba iyadu gacan kuma haysto karto waa inay waxa weeye ay meel u soo martee inay waxa weeye ay adkeeyaan oo isku xidhnaan ay sameeyaan oo ay joogteeyaan taabagelinta iyo adkeynta amniga hawada Soomaaliya oo aan carqaladaynin oo shirkadahana lagu qasbo ama lagu amro inaysan soo qaadi karin hal qof oo aan wadanin visa dalka Soomaaliya waxa 24 saac ugu dambeeyay baraha bulshada la wareejinaya Hargeysa waxa loo fasaxay iyo Berbera ayaa loo fasaxay fiisaha dalku galka oo inay ka qaataan on arrival ay ku qaataan arintaas waxba kama jiro ma jirto sabab la yiraahdo Muqdishona visa ha soo dalbadaan garawana visa ha soo dalbadaan Berbera iyo Hargeysana on arrival ha ku qaataan Berbera iyo Hargeysa ma wadan kaleeta adaan ku weydiinay ma wadan kala waa propagando ansal iyo raad rahayn oo xataa dadka tabinaya iyo kuwa faafinayaba aysan fahmaynin xataa waxa iyaga ku soo noqonaya ma dhici kartaba Berbera iyo Hargeysa on arrival ha ku qaataan waxa weeye Garowe iyo Boosaaso iyo Xamarna iyo Kismaayana ha ku soo dalbadaan online xagee waxaasi ka jira see ku dhaqan galaya suurtagal maaha taana iyadana waa propaganda asaliya raad raay dhinaca kale Puntland waxay sheegtay oo maanta ay ku dhawaaqday in lagu wareejiyo hay'adda ECAW ee hawada Soomaaliya maamuli jirtay in lagu wareejiyo oo dib loogu celiyo wax dhowr iyo 10 sano ka hor la soo wareejiyay oo Soomaali ay lahayd oo Soomaaliya lagu maamulayo bal aqli darrada iyo waxa weeye fikir la'aanta